أظن تبرهين تلنا عنهين وطلاب قبي كل كتويوي لمن ترغ يالي وتفابولا وأن كوتورين كوت حاتان إلا قولت هاقو تشوينا والله قولتاني تويو تشوينا والله قولتاني تويو كل كتحنا طريقها قود تبت أدميقا ليتي وصومري إن الله دارو أبار تغنيو توسكال عادي يسكو تيساري نبتو ماتي أدنا كورتاقي تشوينا وانا روحايتايو تشوينا وانا روحايتايو kulanti wacan oo wanaagsan khayrta hawada naga dhageysata ay ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijka yaa fikirey federaalka Soomaaliya oo ah taxane ku saabsan soo ifbixi federaalka Soomaaliya. inkastoo dawladda reer galbeed ay horseed u ahaayeen federaalka Soomaaliya haddana waxaa dhamaystiraya siyaasiyiinta Soomaalida oo u muuqda inay iska indhatirayaan caqabadaha ka soo baxaya federaalka Soomaaliya ay qaadatay. waxaa jira aqoon-yahano Soomaali ah oo aaminsan in federaalku uu yahay qaladkii ugu weynaa ee Soomaalida laga galay abid iyadoo la xasuusto 1884 gumaystihii reer Yurub ay Soomaaliya ku kala qaybiyeen. waa kan wasiirka wasaaradda takadaha iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaya sida federaalku uu kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed oo markii hore la daalaa-dhacaysay dhibaatadii ka soo gaartay dagaaladii sokeeye iyo dhagartii gumaystaha. federalismku waxaan qabaa waa arinta aan u leeyahay taariikhda Soomaalida ma soo marin baan qabaa khatar kaga badan ummadnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliya waayo 1984 waati la yiri Yurub baa Soomaaliya qaybisay taariikhdaas markii ummadda Soomaaliyeed ay dawladda noqotay waxa loo aqoonsaday inay noqoto baal madow oo ku yaala taariikhda ummadda Soomaaliya waxaana loo aqoonsaday inay noqoto dulmiyadii ugu waaweynaa ama dambiyadii ugu waaweynaa ee ummadda Soomaalida uu gumaysiga qabsaday ka galay oo aan mid ka weyn la sheegin mid ka weyn lama sheegin inay Soomaaliya oo mida loo qaybiyay oo loo jarjaray 5 meelood waxay ahayd dambigii ugu weynaa ee ay ummadda Soomaaliyeed u haysatay dadkii qabsaday laakiin maanta yaa qaybinaya Soomaalida qaybinaysa waxa weeyaan ma la jiifiyaano banaantii wadaadkii laga sheegay wixii qarnigii 19aad dabayaqadiisi Soomaalida dambi ku ahaa iyo dulmi laga galay maanta way ku yihiin ma danaynayno qofka ku sameynaya ka uu yahay inuu Soomaaliya inuu mid kale yahay ma aha dambigu waa dambi dulmigu waa dulmi cid sameynaysa kuma xidhan waxaan si markhaati ka ahay anigu waan rumaysnahay qarnigii 19aad dabayaqadiisi sidii Yurub u qaybsay Soomaaliya ay cadaalad dhaanta sida maanta Soomaalida ay qaybinayso xasan sheeko Soomaaliyeed baa jirta carruurta looga sheekay oo tiraahdo islaam baa xaaba gurtay way qaadi kar weyd markay qaadi kar weyd ayay kamay gurine xaaba kale ku gurtay waxaan taa ugu maahmaahaya waxay la mid tahay ummadda Soomaalidu mashaakil baa ku dhacay xaq waxa ahaa oo sax ahaa inay raadiso wax ay dhibaatadeeda ku xalisho xal ku hesho waynu isku daynay Soomaalidu isku dayday si doonto baa isku daydo markay xalismi weyday ayaynu niri oo ay la mid tahay aan mashaakilaad kala abuur koon Soomaaliya xalin kar waayeen waxaan hayso Soomaaliya xalin kar waayeen aan mashaakilaad cusub abuurano dabeetana aan kuwa ka hadalo waxaan uga jeedaa waqti yar ka hor intaan federalismka laga hadlayo la wadin tuulo kasta iyo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya kamid ah laguma muransanayn meesha ay tahay cid leh iyo xagay raacsan tahay waxa la isku raacsanaa inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaaliyan leedahay sida maaha laakiin fikirka federalismka lagu sheegaya markuu soo baxay waxa noqotay in la isku wada qabsado geed iyo ceel sidii bari reer baadiya oo la yiraahdo ceelkan xaggan u ahaa iyo annaga iska lahayn waa ta imika aynu leenahay xaajigii gaalkacay ka hadlay gaalkacayo weligeed waa la yaqaan in magaalo Soomaaliyeed tahay oo dad Soomaaliyeedna leeyahay waa la yaqaan maxaa cusub marka waxa cusub fikirkan cusub la qaatay waxa uu abuuray oo ah xageed magaaladan raacaysa ma state-kayga mise taada waa state-kayga taada ma taasoo qura ma gaalkacayo qura ma waa sida ay u badan tahay imika waa sida u badan tahay in la yiraahdo
Soomaalidu iyadoo dagaalkii qabiilka ka xiisa dhacday oo dareentay dhibtiisa ayaa dagaal kale oo ka xun oo ah geedkayga iyo gobolkayga ayaa loo abuuray waana ka aynu ku wada indhalanay maanta siyaasiyiinta Soomaalidu siday u badan yihiin aqoonyahanka Soomaalidu sidoo u badan yahay waa ta maanta haddaad tiraahdo war waxan waa khalad waa ta burka madaxa bur ku dhacayo exactly waana dhab laakiin waxa fiican in cidii difaacaysana ay hadasho laakiin dadka Soomaaliyeed ee diidani ay yiraahdaan waxan dan Soomaaliyeed ma aha taariikh bay noqon doontaa waxaan isleeyahay waxa fudud oo sahlan in la yiraahdo dawladda Soomaaliyeed waxay ka dhisan tahay ummad Soomaaliyeed oo isku mid ah iyo dal Soomaaliyeed oo ay leeyihiin waa dal iyo dad leh oo ka dhaxeeyo oo aan u kala qoqobnayn oo aan u kala xariiqnayn oo aan u kala soconayn runtii anigu waxaan u arkaa maanta dadka qaar si kale u arkaan laakiin waxaan isleeyahay waa arinta aan leeyahay taariikhda ummadda Soomaalida waa dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahday waayo waxay noqon doontaa in geed la isugu dilo haddii wax kale noqdo waxay noqon doontaa in ummadda Soomaalida dhaawacdo oo qaybso anoo ardayo thesis qoray ayaa nin baa igu yiri ninkii supervisor ah oo hindi siiqa oo kuma timaad uga ayaa maalintii aan dhameeyay duuniya tuu ha teginay soo mar xafiiskaygu soo mar tumaanka soo xantan la bala wuxuu su'aal baan ku doonayna ma taqaanaa qatarta ugu badan ama tredka ugu weyn ee qarannimo Soomaaliyeed oo qiimo leh hortaagan matqaan ma yaba wuxuu yiri isagaan fikirin wuxuu hortii war siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhan waan arko arintaas waa ka daahanta uma bilowna laakiin wuxuu yiri qatarta ugu weyn ee dawladnimo madda Soomaaliyeed ay hesho oo qiimo leh dawladnimo yani qiimo leh daragii waafigayo kala waa qaybintii ay u qaybiyeen gudaha Yurub qarniga Soomaaliyeed maanta yaqas way ummad isku mid ah oo dhul isku mid ah leh ayaa la qaybiyay saas marka waan iska dhaqaaqo waxaan ku wada mahadsantahay laakiin arintii madaxayga ka bixi hadda tii kale intii hadhay ayaa gudaha loo soo galay markaas la doonaya reer walba in dawlad iyo calan iyo baarlamaan gaar loo sameeyo been miya taas reer hebel waxaanu idiin samaynaynaa dawlad iyo calan iyo baarlamaan iyo ayaanu idiin samaynaynaa halka ay maraysaa iminka halkaasi maraysa maxaa taa ka dambeeya taa waxaa ka dambeeya you are Somaliland you are Puntland you are Galmudug you are fulan dhulkaagu wuu yaraan doonaa dadkaaguna qabiil yar tabar yar buu noqon doonaa waxa dhici doonta laba arrimood way dhici doonaa tobanka geed ee reer in marba madax la isu geliyo oo la xuduud bay isku haysaan iyo dhaqaalihii wadanka soo galaya qaybsan aad iga badsatay iyo kuraasta aad iga badsatay waxa in imtixaan cusub in bilaamo oon hore u jirsan taariikhda Soomaaliya ku jirin iyo in la yiraahdo adiga laguma jeeday waa dibigii cadaaya kiimidoobaay kan cad horta in meesha laga saaro oo la yiraahdo adiga Somaliland aawa lagu qabsado oo leedin kuma jirtaan intii kale oo la yiraahdo adiga meesha la yiraahdo maxay ahaydeen Jubaland adigu balaayo soo gaar mayso adiga dad kuuma socdo oo markaa miskiinkan kuraasta fadhiya kursiga fadhiya garbaar ruux ayaa yiraahdo inaga kuma jiro waa la sheegay waa tiranyo waa murugo waa qiimo la'aan wax la yaab leh dadka Soomaalidu markay maamuli kari waayeen qarankoodii qiimaha lahaa ayay doorteen inay waxan noocana inay door moodaan ayay noqotay yani dad maskaxdooda xaqii dambe u socotay dawladihii iyo ururadii ku mashquulsanaa in Soomaalida lagu qanciyo qaadashada nidaamka federaalka waxa ugu tun weynaa midowga Yurub oo hindisaha federaalka lahaa iyo dawlado kale oo reer Yurub ah kuwaas oo bixinayay dhaqaalihii ku baxayay shirkii 2 sano ka socday wadanka Kenya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo joogay shirkii Embagati isla markaana ahaa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka lagu soo dhisay Embagati ayaan weydiiyay kaalintii midowga Yurub uu ku lahaa in Soomaalida laga dhaadhiciyo nidaamka federaalka ah ee ay qaadatay waxa uu ku jawaabay xildhibaan Dalxa بسم الله الرحمن الرحيم وأنا سنتهاي راديو كونية مركي لو بحو دبوشيسين تي لو كون يوافرتي إنبغاسي سوالي دا سقوط التايسي مركا لو بدو روتي دواتري مركا ودنك تجيرتي بربوركي أيضا مركا تشارسكي marka weyna iyada ay ku lahayd beesha caalamka oo markaasi IDU ama I don't know international partner ay ahaayeen baan umaleynaya oo iyagu markaas iyagana ay ka ciyaarayeen door aad muhiim ah oo ay maalgelinayeen iyagoo markaasi midowga Yurub iyo maaragtay midowga Afrika iyo IGAD oo iyadoo markaasi shirka garwadeen ka ahayd oo frontline states waliba dawladaha safka hore oo iyagana kaalin mug leh ciyaarayeen dhammaan marka wakiilo kale oo iyagana jaamacadda carabta iyo dunida muslimka oo ay sida ay ku sugnaayeen madasha intaba adiga dadaal iyo dood 2 sano iyo wax la jira loo fadhiyay shirkaasi ayaa horta uu federaalka ka soo dhaxbaxay sida ayaana loogu qaatay dastuurkii marka kumeel gaarka ama charterkii in Soomaaliya waxa lagu maamuli doono uu noqon doono nidaamka federaalka ah isla markaana habka ay wax ku qaybsan doonaan awood qaybsigooda uu ku salaysnaado iyadoo tii la tixraacay markaasi Djibouti oo aan waxba ka bedelna
ahaaneen 4.5 ama 4.5. waxaa jira warar yiraahda ama qoraallo sheegaya in midowga Yurub ay iyagu ahaayeen dadkii maalka ugu badan iyo dadaalada ugu badan ku bixinayay oo dawladaha igaad ku midaysan iyo kuwa midowga Yurub ku midaysan ba aad ugu riixayay in nidaamka federaalka lagu qanciyo dadka Soomaalida inay qaataan oo xilligaas xal loo arkay marka ma jirtaa in midowga Yurub isagu uu lahaa awoodda ugu badan Soomaalida markaasi looga dhaadhicinayay inay nidaamka federaalka qaataan طبعا kulmay waa la sooran karaa waxa ay dhaqaalaha ugu faraha badan midowga Yurub ay bixinayeen weli wadamadan Scandinavian-ka ayaa saamfirayo Sweden iyo oo ay ahaayeen kuwa ugu maatay tirada badan ee dhaqaalahaasi bixinayay Talyaaniga iyo waxay ku lahaayeen yani galangal weyn oo runtii dhihi karo shirkaas Soomaalikiisii fududaynta ergada runtii bixinta waxyaabahaas duwan ee shirkaasi ay ku baxayeen dhammaan qarsiyada la isticmaalayay mar waliba waxaa dhagaha ku soo dhacaysay lacagtaas la soo shubay oo midowga Yurub ay soo shubeen intaasi ayaa maartay midowga Yurub waxay ugu talagaleen barnaamijka noocaasi intaasi ayaa midowga Yurub waxay maartay ugu talagaleen in si oo markii xataa ay dhamaatay maartay dimuqraadiyadii adiga magaca midowga Yurub aad u runtii u ahaamay doorkiisa dhinaca waliba dhaqaalaha ee ku baxayay shirka labada sano iyo barka socday mid door muuqda iyadoo markaasi wakiilka qaramada midoobay isagana meesha uu ku sugnaa markaa aan xusuusto maasiragii ambassador Tobmani ay kamid ahaayeen midowga Yurub markaa laakiin rabitaanka federaalka Soomaalida laftirkeeda ayaa maartay markaad fiirisid Puntland iyo waxa aad u cadcada markaasay hadda South West oo hadda maartay magaca maanta iyada la baxday raga aad federaalka badi mar waliba maartay si cadcad maartay iyaga ula soo taagnaa madasha oo mar waliba ayaga fikriyan aad maartay ugu dhaganaa oo u arkay xal oo Soomaali kaliya la soo imaan karo mar hadii la kala tagay in federaalka uu noqdo marka dawladaha dariskana hadda kama marnayn qubaradii reer Yurub ee diyaariyay warbixinta salka looga dhigay federaalka Soomaaliya ee aan xiganayno waxa ay warbixintooda ku sheegeen in nidaamka federaalka uu yahay midka ugu haboon ee qancin kara Soomaalida kuwooda doonaya inay dhistaan dawlad dhexe iyo dawlad goboleed awood leh haddaba su'aasha la xiriirta federaalku ma isku dheelistiri karaa dawlad dhexe iyo dawlad goboleed awood leh waxa mar kale ka jawaabaya Professor Cabdi Maxamed Shucayb oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaalida أنا جوابت ميل كذا إنه مية دولت له أود له ولا هيل كراه ما مرقولات أصلا أود له هو ما كراه لكن محاي ما نيسا وش كحرنا شلنا يا ما نيسا نقول بقول أنا جاوا حاجة سميسنا كليه متبقى معرتي مثلا قولين كان أرجع سنة أنت لويت ما مرقولات كان بنتلاند بيت دجال كسميين بنتلاند ودعوا وركوفر بابا لقى صوت درويري هاو وحن معقول هين مركب بنتلاند مركب ما مرقولات كي مرة مثلوا يدينا يا دولتي اللحى مرة مثلوا يدينا يا maamul goboleedyadii jaarkiisa ayuu eedeynaya that's not fair maaha wax hagaagsan maartay socon kara maaha marka sidaas imku ku muuqata waxaan loogu talagalo oo maartay sida inay ku sii socota dawladda awood leh wala heli karaa maamul goboleed asna awood leh oo imaan karaa laakiin maxay imaanaysa isku xirnaa shalaan ay imaanaysa intaasna waxa ku dhandhagaystayaal qaybtii shanaad ee barnaamijka yaa fikirka federaalka Soomaaliya oo ah tixaane ku saabsan soo ifbixi federaalka Soomaaliya anigoo Maxamed Axmed ayaa idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu ku kulmayno qaybta lixaad ee barnaamijkan waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo عير لتريو وحمة ريال دوب عن حنيو وعاد عن طوري إذن تليان عمة تويوي نبات طعميو نولا دبتال ووحطة لسنة صوبي عضو عيرك الله قطرو وقت حان قبيل لبا ذاتلو في نورون طلاب صدا تشوينا يا وانا